kaaraha dhexdiisa lagu qabana waa lagu baaranaya mobilka soo bix intii u dhaweyd intay cararaan ay xaq istaagaan isbaar ku dhacay muujeeda isbaar ku dhacay war miya way badan yihiin ma hal mar lagu soo xoomo tuugada laga celiyo ma la hadla sida xoolaha banaanka laga istaaga markii banaanka laga istaago qofkii wixii la qaadanay laga qaato oo ay ka tagaan tuugadii oo uu soo baxo dadka soo dhaxgalo ay ku soo xoomayaan maxaa laga qaatay maxaa ka gal wixii laga qaatay laga qaatay war miya marka dadku markay mushkilo muddo ay ku jiraan nafsiyaadkooda iyo maskaxdooda caadi ma noqonayso midaad koor waxa la qiso waxa jirtay xaafadan ayaa waxa jiray hal nin ayaa wuxuu yaqaanay yaasiinka Soomaalidana qof markuu dhimanayo in la yaasiimay yaqaanan oo yaasiinka lagu akhriyo qofkii yaasiinka aan lagu akhrin oo dhinta waxay yiraahdaan hebel wuu yaasiin saagay wuxuu la mid yahay neef xoolo ah oo aan la gowricin oo dhintay markii yaasiinka hadii lagu akhriyo si fiican ugu dhintay laakiin dan yaasiinka lagu akhrin oo iska dhinto waxa la hebel wuu yaasiin saagay xaafadii hal nin yaasiinka yaqaana maalmaha kamida xaafadii shubana ka dilaacay daacun dhimashadii marka si xoog leh u socod halkii nin marka xaafad meeshan oo laga dhimanayo oo qof sakaraad uu ku jiro yaa loogu yeeraa yaasiin soo oraday xaq uu orday markii qof dhimanayo soo yaasiin asoo qofkiiba aan gaarin yaa xaafadii nin ahda laga soo qali ar yaasiin dhexda intuu istaago wuxuu yiri wallahi cidaan yaasiin laan u dhamaan doonaan yaasiin ka baran waayaan aniga aan keligay yaasiin laan u dhamaan doonaan kuwan marka waxaan ku keenay Soomaalida waxay dhamaanayaan jaahilnimo maata maytatan jaahiliya xadiidku man maata walaysa fi unuqihi bay'a asagoo aan bay'o iyo system iyo nidaam aan ka tirsanayn qofkii geeriyooda maata maytatan jaahiliya wuxuu dhimanayaa si jaahili u dhimanayaa mid ingiriisa waxa limid oo saaso aaminsano ma faradna fil kitaab meeshan waxba loogama tagin dhaay ya is arkeen xunana kitaabkeen wax ka soo sheega markaas uu kitaabkiina wax ka soo sheega magacayga ka soo saarba kitaabkiina markaas uu magaca adiga wuxuu kuuk ayaa la dhahaa watarakuuka la bishoogaysaa watarakuuka kuuk ma sheegaysa magaci ninka ingiriiska oo meesha ka soo saaray watarakuuka ninkii hadda waxaan soo xasuustaa asagana xoori muu tukan jiray markaas anina wuxuu niyow lacag aan ku siina tuko wuu leeyahay halkii salaad lacag uu ku leeyahay 5 maalmood markuu tukanayo yuu lacagteedii markaas uu maanaadii tukatay ilaahay aad tukatay waxaan ku siin maleega leex waraan ma tukan jirin adaa diray shaqada ay galiye lacagteedii siiniyo wuxuu waraan waxaan ku siini mal ma beer baad ii fashaanay marka lacag ku siinayo markaas uu masaasa adna maxaad ka qaaday weysilaan aan tukan jiray 5 maalmood weysi ma qabin aniga marka Soomaaliya qodax isku jijibay idinka maata maytatan jaahilin ma ka qaadaysaan jaahilnimo baa lagu dhamaanaya markii si jaahilnimada looga baxo waxa raba qof walba meeshiisa inuu yiraahdo warseen dawlad ku noqonaa midaa safiinaha loo bilaabay hadda koor uu tukan jiray berigii hore markaas safiinaha wuxuu salaad u kala dhigi moogtay si la yaab leh faatixada waxa uu ku akhrinayaa at-tashdiidaat fi al-faatihati فوق الراء وفوق الشين شدك ماشي لساري دن وأنا تصو أخرس الرحمن الرحيم بريقو هرا مركو تكنا واسكت دريري جري ما الرحمن الرحيم مالك يوديش سفيني مركو ساو دمي يوحور إلهي يو صلاة دي أن تكن جري سفينة كهر أجر كمر ربعه يعني لا يقب سنة إبري هيدو تيهور وحان تكن يعني لا يقب سنة مركا sidaas oo kale day jirto oo dadka qaar ka ilayeen la ilaaha illa allah idin hor waxba kama jiree hadda la idin bilaabaya waxaan soo qaadanay muslimnimadu hadda ma ina bilaaban ninka siyaasiga qabiilka wuxuu isticmaalaa oo kali jaranjaro uu guriga ku fuulo markuu darbiga saaro oo jaranjartii uu ku fuulo meesha koro uu koro haduu rabo jaranjartii laadu ku kiciya dhulku ku soo ridaaya ilaa kor uu ku fuulay moogtahay dib dambe loo ma arkaayo korsu ugu maqan yahay kuwii kor isla fuulay marmar inta isku dhacaan korkii laga soo tuura dhulku imaana jaranjartii oo dhowr sano ka hor dhulka ku riday
yuu soo qaadanaa meeshuu raba inuu saaro marka haddana oo yidhaahdo reerkeenni si xun aa loo galay waxba looma gelin adaa laguu galay maxaa jira markaad kor ku maqnayd adi lee dhuuqaay adi ma waxna siisay annaga wadaadada berigii hore moogtahay fiqiga akhriya culimada ah kuwa waxaa jiray ka fallaagoobo oo aan waxna baranin oo qubuuraha intay wareegaan wax carra iyo wax ka soo qaadaan oo culimada fiqiga akhris waxay dhigi jireen ruuxan iska dhaafa ويحرم وحا حارانا بناء القبر قبرك إن لا ديسو وتجهيزه إن لا نورديو markaas waxay dhigi warnaga leexda idinku cilmi daahira taqaanaan anna waxaan aqoon cilmi baadil yiraahdo ayaan naqaanaa waxay sameeyaan marka kaas aan waxba aqoonin ee duurka la ku jiro qabuuraha wareegaya wuxuu soo qaadaa carru ka soo qaadaa qabri dadka caamadu u keenaa marka wuxuu leeyahay qabrigi oo hebel aan ka imaaday ma dhahay marka waxaan oo bacda ugu jira waa carro horta waxay ka kooban tahay muxtawiyaadkeedu waa carro لكن هو عرضان ما داعي عرض وحوله ورحق يقول له عرض مرة به لكن وحوله باش ما تقنا ذيك تراب على الها مرك التراب ما هيتاي وعرض له وين معناه عربي له لغة يبس كي عامضة مرك وحوله ما شاء الله ما أنتوا حفيعنا اللي كان محلو كان تراب على اللي كان تراب ما هيت عرض له لو كان لا تنجي على قادم مرك ماشي المعمولات أنا أدمق لسانه هبلوا لكل قبيلة فيها أمير المؤمنين أمير المؤمنين كذا وجوجا وحال هذا ده كان في قلبيات كعب عقلي أهان لقى ما عقلي بدنه لكن حي سميان قف كذا فاشل كع وحب أوجين أي جعان قبتان إلى أكن نجح شخص دراد العقل قريان قف كان شقيسنين سومالي ده حتعملها تتوارتن عير الله قرى الله وفاشل مبتاي وحب ما هيست وحب الله قريان العقل السينايا بعدين كان فاشل كع أي جعان قبنايان حتى ينجح إلى أكن نجح أما إنك وحن سمينا إنه قف كان ناجح أيام بالاش كرفينا حتى يفشل سوء فشلوا خير وحالي ميل توله dad wada in dhal ay degan yihiin yaa mid in qaba oo imaaday markaas markay socdaan markuu arko godadka ay ku sii dhacayaan isma hayn karo wuu qaylina war godka ka leex kii uu isku naxay bariga hore intuu iskaga dhaco iska kici jiray oo iska socon jiray wax godka leex dhigi jiray moona jiri way dhibsadeen marka godka leexashadiisa dhibsadeen waxayna ninkan ugu soo biiray aan ugu nooc ahayn aan isku nooc ka dhigno maalna meel marka martiqaad uu qabay saasoo indhoolayaashii ninkii indhaha qabay lagu sheekaysanayo bay hal mar dhab intay siiyeen iyo labadii indhood ka bixiyeen aan wada fariisanna marka waa kaas godadka aan ku dhacno aan sii soconno taas marka aqligu ma keenayo xilli ay jiri jirtay hadda waa iska dhaafay oo masaajidada tirada ka batay masaajid miyay yaraayeen mise masaajidada maamulkooda isku qabsan jiray markaas mixraabkan waa la kala xoogi jiray bari odayaashu ay soo gaareen wadaada marka safku toosinaysa imaam meesha ka intuu xagga ku maqnaa istaw ku hay koo yar leenta ka soo baxay uu galay Allahu akbar salaadii ku jiraab sheekhu uu yaabay bas safkiisu dhinac ka galay dhinaciisu Allahu akbar ta ka wadi waa sidii lagu tukaday kaas meesha xooga ku galay marka salaadii lama aqbalay maxaa loo aqbal way salaadiisa dadweynihii uu ogolaan lahaa oo sharciyada uu saa ku yeelaya siin lahaa ayuu ka talaabsaday koo waxa la yiraahdaa daafeede waa ilbaxnimada hore moogtahay yaa meeshan ceelgaabta jidadkan badan ayuu maray marka inta nijida ka imaada horta nijida ka imaada gadaalna nijida ka imaada dhaxduu socday marka afartii jihaba afar hoon oo baabuur ay kaga soo yeeriyeen markaas dhinac u bood markuu baawara taagan xagga uu markaas dhaxdan intuu iskeyska wuxuu dhahay intuu horni intuu horan marka haawam laakiin xagaasi beedwaad li siyaada raay noqotaa haadu intuu horni noqon lahayd laakiin meelahan soo markay joogto intuu horni intuu horan u dhahay marka shacabiyana Soomaaliya waxa haysata war walaalayaal hal dhinac naga xukuma hal jid uu nagu jeesiya laakiin haday noqoto inta waa laga amray xaqana waa laga soo amray xaqana waa hadana waxa la isleeyahay shariicada ma la isku xukumo waaba la wareersan yahay goorma la isku xukuma horta soo in la fariista ma aha oo bismillaahir rahmaanir rahiim intii la dhaho oo la heshiiyo oo dadka iyagoo miyir qaba intay soo imaadaan wax kala qortaan المسلمون على شروطهم مسلمين توحي أي شرط إسكال دكتان إلا شرطا أحل حراما أو حر